gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Mas'uuliyiintan oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka oo maalmihii u dambeeyay socdaal ku mareeyay degmooyinka gobolka ayaa shalay gaaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. warkani waxa Balad Xaawo nooga soo diray wariyaheena Nuuraddiin Xasan Deeqa. soo dhaweyn kadib si heer saraha loo soo dhaweeyay wafdigii soo gaaray degmada Balad Xaawo uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ahna kusimaha gobolka Gedo mudane Cusmaan Nuur Xaaji Mucallim iyo sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada. kulankan ayaa waxa lagu faahfaahiyay ujeedka safarkooda waxaana ugu horeyntii ka hadlay kulankan gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Cabdicasiis Xareed madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxdii wadanka ugu sarreeyay salaan ayaa kaga wadna naga gudoomo walaalayaal waxaan maqneen muddo 2 bilood labada bilood shaqaan ku maqneen gobolka waa soo raacay waa la midoobay dawladnimo loo gudbay waxa la joogaa waqtiga isla xisaabtanka waqtiga wax walba la isdaaw marinayo ma jirto waqtiga wax walba ay sheegay meelan la aqoonay ku dhacayeen waa soo dhamaatay waa la isla xisaabtamaya haduu la qadaro dawladda federaalka la xisaabtami oo xuquuqdan ku leenahay ugu fadhinaa shacabka la xisaabtami madaxda gobolka la xisaabtami sidaas ku soo dhawaada shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Balad Xaawo in dawladda aan ku maqneen waxaan anaga ku doodayna maan ku hadlaynay laba shay aan ku hadlaynay labada shay aan ku hadlaynay ninkii odaga ahayo naga xirnaa wasiir Cabdirashiid dawladda maadaama gobolku israacay inay nagu xurmayso oo nala siiyo waa doodanadii koobaad doodanadii labaad waxay ahayd gobolka Gedo muddo 30 sano ah dawlad ma arkin hatta dawladda si aad bar nabadgelyo ku haysan laakiin horumarku ma haysanin nabad laakiin waa ku haysan alxamdulillah 30 sano wixii naga maqnaa 6 bilood in looga dabageey madax ninka ugu sarreeyay ninka ugu hooseeyana waa nagala ballan qaaday. dhanka kale inta uu kulankan uu socday waxa ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo iyo qaybaha kale ee bulshada ee ka soo qayb galay kulankan Soomaaliyeed dawladnimo aan idin wadnaa horumar baan idin wadnaa barwaaqaan idin wadnaa wada tashi baan idin wadnaa wada jir baan idin wadnaa inaan dawladnimada garab istaagnaan idin wadnaa ma aysan helin maamul isku midaysan oo xuquuqda uu dawladda ku leeyahay shacabka reegada u raadiyo ma aysan helin shacab midaysan oo saananta isugu yeero oo bulshada hago oo yiraahdo hoggaan fiican oo bulshada hago oo yiraahdo halkaasay wadadayna tahay ogaada moosan helin mar haday tahay maanta waxaan u midaysanahay inaan dawladda Soomaaliyeed garab siino xuquuqdii uu gobolka ku lahaa ee wala mid yahay gobolada kale Soomaaliyeedna aan dawladda Soomaaliyeed ka helno badnay horumarka iyo midnimadu waa danta koobaad oo raadinayno waxaan saakoodan ku dhawaaqaynaa waa midnimo haddii ay noo suurta gashana waxaan ugu filan midnimadanadii saakoodan aan lahayn midnimo gobolkii Gedo midnimo waxaan u taaganahay waa midnimadanada waxaan hanan karnaa oo miisaankanagu u shaqayn karaa markuu gobolka Gedo midaysan yahay ilaa maxaan ku iraahdaa yurkud iyo meesha la yiraahdo boholgaras iyo ceel waaqiya baar dheere waad garanaysaan miisaanka aan ku leenahay nidaamka dawladnimo iyo gobol ahaan miisaankanaga waad ogtihiin intaan maal leenahay xoolahanagu intay leeyihiin waad ogtihiin annagu qaran doon baana dawlad doon baana waxaan niri qof walbaba dan buu leeyahay duruuf ba haysato shacbigu dawlad buu rabaa waa idin ka horeynaa waa idin la shaqaynaynaa yaa dib noo dhigay yaa horumar noo diiday yaa dawladii naga reebay waa siyaasiyiinta meeshan ma joogaysaan oo degmadan kaliya uma adeegaysaan Jubbaland oo dhan baad u adeegaysaan hoggaan u tihiin inaan dardaaranana waa idin ka codsanaynaa intaas kadib Jubbaland baa leeyahay war Jubbaland dad ma laha qof ma laha qolo gaar ma lahan waxaa leh Soomaaliya waana state la yaqaano mana baabi'in Jubbaland way jirtaa ma baaba'ayso
hadday madaxda xumaato madax fiican baan dooranaynaa madax fiican oo aan jecelnahay dooranaynaa ninna kuma galadinayna Jubbaland oo magan uguma ahin annaga Jubbaland u dhaladnay degan dhisnay haddana dhisayna insha Allahu kariim ugu dambeyntii waxaa kulankan soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado isagoona gudoonsiyay degmada Balad Xaabo shahaado sharaf soo dhaweyn ah deegaanada kale oo dhan waa la isla qaba hal deegaan oo diidan ma jiraan hadda mas'uuliyadda Jubbaland saad ogtihiin baa u sareysa waa raggan hadda halka socda oo anigaan u sareeya cid ka sareysa ma jirto way dhaceen waqtigoodu wuu dhacay xoog bay isku doorteen xoog markay isku doortaan saad ogtiin dadka iska raaci jiray hadda waa laga haray xoog bay isku doorteen dadkii way diideen maamuladii way diideen kaligooda afcadada taagan waa ogtiin saad ogtiin hadda anaga markaan soo galnay nimanka halkaan ku dhudhuumanay qaarkood way iska baxeen hadda waxaan xaqiiqa oo idin cad ama idin cadeynayna dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed wax uu diidan yahay indhaha kama qabsanayso shacabka Soomaaliyeed wax uu diidan yahay in ay indhaha ka fiirsata raali kama noqonayso amar cad ay ka bixisay wad ogtiin hadda galgaduud dhisma ka socda markii ay ka soo dhamaata halkan waxa imaan doonta wasaaradda arrimaha gudaha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waftiga dawladda oo dhan gobolka Gado ka bilaabanay ilaa iyo jubbooyinka meesha u dambeysay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dadweynaha reer Balad Xaawo oo sida qeyrada leh noo soo dhaweeyay waxa kale oo idin sheegaya xalay qadka la isku wareystay waad noo qariseen aan leeyahay meesha waxa socday madaxweyne qeyra socdaal leeyahay madaxweyne farmaajo socdaal leeyahay ra'iisul wasaare qeyra wafti qarsoon oo madaxweynuhu dhex socdaal leeyahay meesha ayada أنا نوقر نيسان ركبة كده ودي وقت كسكور رئيست ولي لما أرك سودوين سيدا نقول عادي دلك الصومالي لما أرك إن شاء الله تان والله قاطع ومحمد هذا بريمة البلد حوا قاعدة تشاي شرف كده وودناه حتى عم بحندون عادي له رالك النقطة لمبرتون وحايس نور الدين حسن ديق دلك تي في دقمة بلد حاوي قبل كجذو